dhalinyarada ubaxa caasimada waa dhalinyaro tayo leh oo u midowday inay wadankan wax ka bedelaan oo ay bilicdiisa dib u soo celiyaan magaalada Muqdishona ay ka dhigteen marka hore focal point-gooda inay magaaladaas wax ka bedelaan kadibna ay u gudbaan wadamada kale ee magaalooyinka kale ee caasimadaha Soomaaliya sidoo kale horta annaga marka koowaad waxaan nahay dhalinyaro is abaabushay oo iska wax u qabso ku shaqeynayaan nahay manihin uma dhisnin organization NGO ah oo inta budget meesha ku qaata shaqadaas interest ka fiirinaya ma manihin wariyaasha iyo fanaaniinta waxaan ka codsanaynaa magacoodii ayagoo isticmaalayo annagana na matalayo in bulshooyinka Soomaaliyeed ay message na gaarsiiyaan ah in dhalinyaro inay wadankii wax ka bedelaan rabaan qurux ku soo kordhiyaan rabaan ay soo baxeen marka hore waxaan ka dhignay in annagu aan jeebkeena iska taakulayno oo aan ka bilowno sayidka ilaa aan geyno madaxtooyada agteeda intaasna waxaan tusaynaa dadka war in annagu wax bilaabi karno oo bilowga aan sameynayno annagu weydiinaynin dad taageero oo dhahaynin war lacag keena annaga interestgeena ama faa'iidadeena waxa ay tahay waxaan raadinayno in caasimadda magaalada Muqdisho ay bilicdeedu dib u soo kabato oo caasimadda magaalada Muqdisho ay noqoto mid caasimadaha adduunka la mid ah oo qurxan dhalinyaro isxilqaantay oo iskood wax u qabsanaysa dadweynahana uu u furan yahay cid kasta oo rabta inay ka qayb qaadato oo soqolo gaar ah ku xirreyn wadan kastana sida ogsoon tahay dad dabada ka yimid ama wadanka u dhalan ma qurxiyaan ee dadweynaha markaas jooga qurxiya marka especially dhalinyarada wadanka u dhalataa la rabaa inay ka shaqeeyaan bilicda caasimada annagu dhalinyaranahay dhalinyarana waxa way waxyaabo badan laga aaminsan yahay haddii ahaato in ay waxyaabo kala sameeyaan laakiin hadda annagu waxaan nahay dhalinyaro rabto inay wadanka qurxiyaan jeebkoodii iyo waxay naftoodii imaalkoodii inay wax ku deeqaan rabaan ma jirto hadda sambal aan u sameynay sidii dad inay akoomo wax ku soo shubaan laakiin istaraatiiji balanka aan hadda soo wadnaa waxay tahay qof walba Soomaaliya inuu ka qayb qaato qorshe uga qayb qaadan lahayn aan soo dejino hadduu akoon lacag ku soo shubayo iyo hadduu qaab uu keenayo face to face uu keenayo dhalinyarada run ahaantii waxa lagu tilmaamaa inta badan inay wadanka tahriibaan inta badan waxa lagu tilmaamaa dhalinyarada inay muxuu ahaay aysan wadankooda wax u qaban anaga marka xarna anoo taas ka duuleena inaan bulshada Soomaaliyeed inaan tusno in dhalinyaro nool ay jirto dhalinyarada aan tahriibayday oo rabay inay Yurub u tahriibaan oo meel kale u tahriibi jiray oo badaha ku dhima jiray inay wadankooda fahmaan muhiimadda uu leeyahay oo ay arkaan wadankoodii qurxoon oo bilicdiisa ay dhalinyaro soo celiday kadibna ay wadankii wax ka quruxsadaan ayaguna ay joogaan haddaanu nahay dhalinyarta ubaxa caasimadda waxa aan qabanay oo magaalada Muqdisho aan ku soo kordhinay ayaa ka muhiimsan waxa annaga afka ka sheegno because Soomaali waxa lagu xasuustaa ama dadka badankood qof aan wax qabanayo dadka wuxuu leeyahay waxaan qabto uu ku faana annagu kuma faanayno wadanka faanaya maanta Muqdisho faanayso sawirka maanta ay ku gashid wadada marka al-mukarrama ama sayidka ay ku gashid dadku ma rumaysanayaan Muqdisho meesha inay tahay marka waxaan rabnaa inaan annagu fariinta aan u diraan dadku waxa waaye hawsha aan bilawnay bilawgeeda leenahay ma ahane dhameystirkeeda qof kasto Soomaaliya oo muwaadin laga rabaa haddaad ku taageeri karto dhaqaale ahaan haddaad ku taageeri karto fikrad ahaan haddaan lacag loo helaynin ma jirto qof rinji ku siinaya oo lacag la'aan ku siinaya ma jirto qof geed ku siinaya waayo qof walba rinjiga markuu keenayo wuxuu keenay inuu lacag ka baxsado oo noloshiisa ku maareeyo mid geedka abuurayo marka hore abuurka sameynayna wuxuu rabay inuu lacag ku helo oo lacagtiisa uu noloshiisa ku maareeyo kan siliga keenaya ee kan birta keenaya waa isla mid marka dhammaan waxay u baahan yihiin fan waxaan u furannahay ganacsado kasta oo raba inuu wadankiisa maal gashado waxaan u furannahay cid kasta oo wanaaga jecel iyo quruxda annaga marka waxaan nahay dad quruxdan in bulshada ka dhex sameeyaan ma rabna in dad sheeya ay maalgeliyaan waxaan u baahannahay shacabkeena Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan horumarkan aan wadno iyo wanaaga in shacabku ka qayb qaataan dadka waxaan wanaaga ugu fiican oo ahelna waxa waaye markii qofku inta noo istaago oo na salaamo oo na shaqo qaranaysiin wadanka wax fiican soo siyaadiseen waa mahadsantihiin shacabkana waxaan ka rabnaa waxay tahay hooyada guriga joogta iyo qofka madaxda waxa laga wada rabaa waxay tahay in ay wixii ay awoodaan markii aan soo bandhigno balaanka aan ugu talagalnay in lagu contribute gareeyo qorshahan inay ka wada jawaabaan aan rajaynayna marka waxaan leenahay Soomaaliya gacmahaas wada qabsana dalkan aan quruxsano dadnimadu waxay ku jirtaa dalkan oo quruxsanaada maskaxdeena isu geeyaan muruqeeniyo xoogeeniyo
maskaxdeenna isu geeyay magaaladiina qurxiyay sidii muraayadoo kale magaaladiina qurxiyay sidii muraayadoo kale sida miliicda oo kale maanta adduunka ugu muuqataa sidii miliicda oo kale maanta adduunka uga muuqataa muqdisho